shaqaaluhu waa quwadda qayb kastay hawshoodu tahay dhaqaajinaya qalabkiyo qarankaba dhammaantii shaqaaluhu waa quwadda qayb kastay hawshoodu tahay dhaqaajinaya qalabkiyo qarankaba dhammaantii qorshaynta hawlaha la wado habkii loo fulin lahaa shaqada u qabo dadaal bismillaahi raxmaani raxiim saaka halkan waxaa imtixaan ku gelayaa baajkii ugu dambeeyey ee temporary-ga kuwaasoo ka mid ahaa labadii baaje hore loo soo qaaday waxaa weeye imtixaankan maanta ay ugu dambayso wuxuu u yahay maxaa guul qaranka ayuu yahay waayo sababtoo waxaa soo gabagaboobaya temporary-gii wasaaradaha inta badan taagnaa waxaa kaloo laga faa'iidayay in fursadaha shaqada wixii maanta ka dambeeya loo sinaado maanta waxay ku gelayaan halkan 3 wasaaradood wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga hay'adda ka hortagga eedhiska iyo wasaaradda biyaha dhammaan waxaan u rajaynayaa imtixaanka khayr iyo barwaaqo aan rajaynayaa waxaanu soo gabagabayn doonaa gebi ahaanba wixii la odhanayay kumeel gaadh laga bilaabo maanta lama arki karo dhici mayso inay wasaaradaha iyo hay'adaha temporary dambe lagu sii arko oo ay temporary dambe sii joogaan sababtoo ah waxaa la rabaa in qarankan loo sinaado shaqaalihiisa oo qof kastoo muwaadin ah Somalilander ah oo xaq u yeesho inuu u tartamo kaalinta shaqo ee ka soo bannaanaata wasaaradaha iyo hay'adaha waxaa sidoo kale gobollada dalka oo dhan ka socda in imtixaankan uu ka soo gabagaboobo oo soo afmeermo oo aan imtixaan kaloo temporary xataa gobollada aan lagu arki karin qof la leeyahay temporary buu noqonayaa taas waxay guul weyn u tahay guud ahaan wasaaradaha iyo hay'adaha ama dalka oo dhan gaar ahaanna hay'adda shaqaalaha dawladda iyadoo isticmaalaysa amarka madaxweynaha ayaa saaka waxay guul weyn u noqonaysaa hay'adda shaqaalaha dawladda inay soo afmeerto shaqaalihii kumeel gaadhka ahaa gabi ahaantiida waxaanu insha Allah rajaynaynaa shaqaalihii hore ee imtixaanaadka galay guushii ay heleen mid la mid ah ayaanu shaqaalahan saaka imtixaanka u fadhiistay aanu iyagana u rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim ciddii calaf u leh ee shaqaale dawladeed dambe noqonaysa process temporary la yiraahdo ama kumeel gaadh la yiraahdo soo mari mayso waxay soo mari doontaa sharciga hay'adda shaqaaluhu waxa uu waafaqsan yahay oo ah kaalinta shaqo bannaan ee ka bannaanaata wasaaradda ama hay'ad inay hay'adda shaqaaluhu si public ah ama caam ah u naadiso oo ugu naadiso dhammaanba da'yarta waxbaratay ee dalka ku kala nool